gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada Somaliland haya kulmiye Axmed Cabdi Xuseen Axmed Cabdi Dheere oo maanta warbaahinta la hadlay waxa uu jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka injineer Faysal Cali Waraabe oo isagu ka soo horjeestay in xukuumadda Somaliland ay wada hadal la furto dawladda federaalka ee Soomaaliya. Faysal waa warbixintiisii shalayta waan dhageystay waanu nala fadhiyay markaa horeba waxa weeyaan qof kastoo reer Soomaaliland fikirkiisa xor buu yahay laakiin jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan dadku shacabka iyo dawlad iyo mucaarid intuba waxay isku raacsan yihiin inaynu qadiyadeena ka midho dhalino. Faysalna fikirkiisa xor buu yahay oo waxaan ka oran karnaa ma jirto waa fikirkiisii cid u diidaysa male mandatekiisa waxaa haysta madaxweynaha waxaanan rajaynayaa ama aan aaminsanahay shacabka reer Somaliland inaanay ka warwarsanayn qadiyadda Somaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland. gudoomiye Axmed Cabdi Dheere ayaa sidoo kale waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay kulan qasriga madaxtooyada maalintii shalay ku dhexmaray madaxweynaha Somaliland iyo mas'uuliyiinta ugu sarsareeya xisaabta siyaasadda ee dalka. su-aashaadii weydiisay haddaan kaaga jawaabo madaxweynaha ayaa shalaytoo u yeedhay xisbiyada qaranka dad badan oo kale oo waxgarada saddexda xisbi shalay bay la kulmeen wuxuu uga warramay safarka uu ku tegayo Djibouti uu imanayo madaxweynaha Soomaaliya lagu wada hadashiinayo Mareykanka ka soo qaybgalaya wadamo kale oo ka soo qaybgalayana way jiraan. inagu haddaynu nahay reer Somaliland mowqif baynu qaadanay hore oo baarlamaanka iyo saddexda goloba laga ansixiyay oo ahaa inaynu la hadli karno Soomaaliya wada hadal socday muddo joogsaday wada hadalku in baa dib loo bilaabay ujeedadeena iyo hadafkeennuna wuxuu yahay sidii aqoonsi caalami aynu heli lahayn ayuunbaa ujeedada safarka loo tegaya uu yahay runtii mandate-kana waxa uu haystaa madaxweynaha talana uu ka qaybgeliyay dadka Somaliland jamhuuriyadda Somaliland oo dhan ama xukuumad ha noqdo ama mucaarid ha noqdo ama maxaafid ha noqdo way isku raacsan yihiin inaynu doono qadiyadda Somaliland aqoonsigeeda meel kastoo loo tegayo in loo tago oo la raadiyo taasun baanay ka mid tahay madaxweynuhu waxa weeyaan gudoomiye xisbigana uu yahay mowqifkeegu waa tegistaa la tegay buu yahay sidii loo dooni lahaa looga madho dhalin lahaa qadiyadda Somaliland. haddaan ka hadlo qodob su-aasha labaad weydiisay ee ah xisbiyada shalayta way fadhiyeen nin waliba fikirkiisa wuu ka dhiibtay madaxweynuhu wixii tale ay oranayeen raggii meesha ay isugu yimid rag badan oo odayaal baa yimi waa lagu taageeray mandate-kana isaga haysta wixii uu la soo noqdo iyuunbanu markaa uu madaxweynuhu inuu kula soo noqdo taana madaxweynahaynu ka sugaynaa. shacabka reer Somaliland waxay u doorteen inuu hago wadanka gudo iyo dibadba. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye wax laga weydiiyay in qaar ka mid ah bulshada Somaliland ay walaac xooggan ay ka qabaan wada hadallada ay xukuumaddu la furtay dawladda Soomaaliya ayaa wuxuu yiri maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxweynayaashii soo marayba mid waliba meel buu soo gaarsiiyay qadiyadda Somaliland madaxweyne aynu uga shakinay qadiyadda Somaliland oo inuu soo maray shanta madaxweyne haba yaraatee ma jiro waa raggii dalkan u soo halgamay dalka xukuma maalintaa ilaa iyo maanta meeshay soo gaarayso iyo halka la gaarsiinayo waajibaadku wuxuu ka saaran yahay oo loo doortay inuu qadiyadda Somaliland ka midho dhaliyo. dadka oranaya maanta ma ahayna mandate ma haystaan iyagu maanta waa qofku fikirkiisa xor buu yahay maanta iyo berri iyo saa dambe iyo maalin walba meel kasta rag garnaqsan waaya oo gole loogu yeeray ka maqnaada ma nihin
waan gartayada waan la haysanaa mowqif baananu taagannahay mowqifkii shacabka reer Somaliland u codeeyeen dastuurka meel looga leexanayo ma jiro kaasaanu taagannahay waxaananu filaynaa inaanu ku guulaysan doono maalin maalmaha ka mid ah haddii Ilaahay yiraahdo